waxaan maanta halkan aanu joogno magaalada Gabiley hotel Boq shirka jaraa'id aan ku qabtay waxaan doonayaa in kaga hadlo oo aan baaq u soo jeediyo dhammaanba dadweynaha labada gobol ee Maroodijeex iyo Togdheer ee ay ka dhacayso kaadh qaadashadii ay ka bilaabayso bisha 8 gaar ahaanna gobolka Gabiley oo aan imiga dhex joogno ayaan doonayaa inaan baaq u diro baaqaas oo odhanaya aan kaga hadlayo in dadweynaha dhammaanba gobollada bisha 8 kaadh qaadashada ay ka bilaabaysa in ay si mug iyo lahaadle ay u qaataan kaadhkii codbixinta ee ay ku codayn lahaayeen ee uu xaqa u leeyahay nin kasta oo muwaadini xaqa u leeyahay ay ka mid tahay inuu helo kaadhkii codaynta doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha qaranka sida golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaankaba waxaan ku goobaabinayaa oo leeyahay dadweynaha waa inaad qaadisin kaadhka nin kastaaba meel uu joogo waa inuu diyaar garoobaa bisha 8 ayaa haddii la yidhaahdo bilaabayaan dhammaanba dadweynaha gobollada waxaan kula dardaarmayaa in ay waajibkaa gutaan kaadhkiina ay qaataan sababtoo ah qofku hadduu kaadhka qaadan waayo wuxuu waayayaa xaq uu lahaa oo ah inuu u codeeyo qofka uu doonayo isagu inuu dalkan hoggaankiisa uu qabto ayuu waayayaa xaq uu leeyahay inuu waayayaa wuxuu luminayaa tiradii gobolka uu ka soo jeedo ama degmada uu ka soo jeedo ayuu luminayaa tiradeedii waayo tira koob baa ku hoos jira waxaa la ogaanayaa gobol walba inta ka codaynaysa waxaa kaloon aad hoosta ka xariiqayaa in la sheegay in tiradii hore gobolladu ay isdiiwaan geliyey ayna ahayn tirada rasmiga ee soo baxaysa waxay tahay inta qof ee kaadhka qaadata ee codaynaysa taasaa tirada rasmiga tiradaa ayaa lagu hawlgelayaa tiradaa ayay gobol waliba uu kaga helayaa xukuumadda hadday tahay iyo baarlamaan hadday tahayba xuquuqdii uu lahaa ee gobolka waxaa lagu helayaa tiradaa u soo baxay gobolka Gabiley gaar ahaan waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha degmooyinkiisa dhammaanteedba kala jooga inay u diyaar garoobaan oo si mug iyo lahaadle ay u qaataan kaadhka codbixinta iyadoo hadhow gobolladu loo eegi doono gobol walba inta kaadh ee codbixinta ee ay qaateen dadweynuhu ayaa lagu xisaabtamaya markaa si aynu maarata uga qayb galno horumarka iyo xaqa aynu ku leenahay Somaliland waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha reer Gabiley dhammaantoodba yar iyo weyn iyo haween dhammaantood inay u diyaar garoobaan oo si mug leh ay u qaataan kaadhka codbixinta taas ayaynu wax kula qaybsan doonaa walaalaheen xaqii aynu u lahayn ee muwaadinku u lahaana aynu ku gudanaynaa marka waxaan leeyahay dadweynuhu ha u diyaar garoobaan ha iswargeliyaan dadkii inaga maqnaa ee berigii hore la soo guray ama dhinaca Itoobiya ama meelaha fogfog ahaa waxaan ku baraarujinaya inay u diyaar garoobaan tiradeennii soo baxday yaani waxba iska dhimin hadday wax iska dhimaan waxay nagu noqonaysaa dhabarjab bay nagu noqonaysaa waxaan leeyahay aynu dadaalno aad iyo aad loo dadaalo gaar ahaan gobolka Gabiley sidii aynu u qaadan lahayn kaadhkii codbixinta waayo gobollada saaxil iyo awdal hore soo qaateen haddii aan 8 waxay ka bilaabaysaa gobolladeenna kale markaa dadweynaha gobolka Gabiley yar iyo weyn haween roole caaqil dhammaantoodba waxaan leeyahay aan dadaalno aan u diyaar garowno kaadhka codbixinta aynu qaadanno alla iswargeliyo qofkii warqadii ay ka luntay hore la siiyey macna male wuxuu tagayaa goobtu imanaya kombiyuutarkii baa yeelo looga baanay marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqayaa dhammaanba gobollada ay bisha 8 ka bilaabmayso
gaar ahaana gobolka Gabiley waan ka soo jeedo inaan dadweynaha inaan la dayicin fursadda muddada ay socoto oo dadkana lagu baraarujiyo meel kastoo ay joogaan intii isdiiwaangelisay maantana ay kaadharkii qaataan waxaan halkan hambalyo uga soo jeedinayaa Home Cable TV oo had iyo jeer iyagu dadweynaha kaa qabtira gaadhsiiyana kolba wixii jira ee waddanka ka jira oo annaga iyo dadweynaha na xiriiriya hadalladayada iyo waanadayada iyo dardaarankayaga iyo baaqaan ummadda u jeedinana had iyo jeer si wanaagsan u gudbiyana waan u mahadnaqayaa hay-adda komishanka doorashooyinkana iyagana waxaan leeyahay sidii aday walba u shaqaynayseen ee daacadda ku jirtay ee wadannimada ku jirtay u shaqeeya dadaala wixii dhibaatooyin lagala soo kulmay gobolladii laga soo qaatay kaadh bixinta oon anigu goobjoog ka ahaa wax ku qaata waxna ka bedela yaani dhicin sidii gobolladii hore waayo iyagu bilow bay ahaayeen gobolladan dambe maanta la qaadanayo waa inaad ka faa'iidaysatid waayo aragnimadii hore ee aad ka soo hesheen gobollada iyagana intaasaan leeyahay guud ahaan waad mahadsantihiin intaasaan ku soo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu